وهالجمان ولادو داير أوله ردمية وياها نلاشا وهالي هلادا إقله ورجدي ستاي هيك سفوك يملا داريا هنسرة صباح كستا waxau hiirta waa bari u kacaa sidii uu u soo ridan lahaa quud maalmeedkiisa isagoo dhanka kale hamigiisa hareerta haya maqdashi cali daahir waxa uu qabtaa shaqo adag oo inta badan ay qabtaan dad ay shaqadooda gaar ka noqotay oo qabatimay maqdashi waa muruqmaal maalintii guryaha dhisa kuna dhisay xirfadiisa oo hadda maraysa darajada kuuliga loo yaqaan inkastoo aanu si joogta u helin shaqadani si joogta melo waska baqtiyaan si waad helaysaa waad waysaa walow uu babac dhigay shaqo adag oo maalmaha qaar uu dayday u galo haddana ma aha shaqo uu ku qanacsan yahay oo waxa uu ku cadaadinaya waayaha nolosha marba rabo in shaqada rasmiga noqoto laakiin waxa jira hadafyo ka duwan oo aan la heshaqada tan laakiin tan shaqo ahaan ama duruuf ahaan u wadagsana maqdashi hadda waa wiil shaqaysta oo muruqiisa maala geesta kalena wax barto oo aan waayaha nolosha isku dhiibin sheekh maqdashi salaam alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh iyo rara khayr wala maad kala joocan markale waxaan ku wanaagsan hadii sheegtaa la sal ala xayka dawaynagan wayn saarina shaqadii geli koraad haysi qaabkii aad u shaqayso si fiican wanigi muddo kala joognay hadda waxaan teginaa goobtaada waxbarasho si fiican inoo qorshaysan ruuxdii iga sheekaysaa allahumma salli ala maxamed waxbarashada halkeed keen qoraysaa waxbarashada adoo insha Allah taala sanadkii koobaad oo jiraan waxaan rajaynayaa inaan halkaas ka sii wado insha Allah ma jaamacad mise iskuul jaamacadii baad ayaad sanadkii koobaad ku jirtaa jaamacaddu waxa weeyaan Unity University ma sha Allah waxbarashadii iyo shaqadii geliga hore aan soo aragnay aad ka wadkayd ee doondoonkada mararka qaar waqtiga qaadanayay sidaas ku wada wani horta oo qorshe run ahaantii hirgelay weeyaan asan waliba taas waxa boqolkiiba boqol ka caawiyay jaamacadda oo ah scholarship asan asa ahaatee way adag tahay horta qofku fikiraya maanta intuu gelinkii hore dee shaqadaas aynu aragnay oo ah kuuliga soo tuurto gelinkii dambana is yiraahdo maqdashi isagoo wata shaqadiisa waxa uu haddana si uu rumeeyay hamigiisa uu muddo baadi goobayay cid ka baritaarta sidii uu sii wadan lahaa geedigiisa waxbarasho hadda madaxa la galay heer jaamacadeed maadaama uu sanado badan la soo kaca kufayay marxaladihii waxbarasho ee hore waxaana hadda u muuqata rajada ah inay aqoontu u horseedi karto badhaadho nololeed inkasta oo bulshada iyo asxaabta qaar uu kala kulmo falcelinada qaar aanu soo dhaweynin in badan intaan qorshaha jaamacadda raadinayay in badan adigu ismaan lahayn fursad noocan oo kale ku soo baxay haddana niyadida kaway maqnay mar kasta waxa qorshaha igu jirtay inaan jaamacad galo asa ahaatee fursaddaas ima saacidi jirin wayada aragtay jaamacadaheennan iminka way ka gedisan tahay jaamacadda oo adigu fursad aad iyo aad muhiim oo waxay bixisay dhawaan san ka warhayo deeq waxbarasho ilaa 500 arday deeq waxbarasho bixisay adoo waxaan nasiib yeeshay inaan ka mid noqdo deeqda waxbarasho waxaa jirta dad badan oo asxaab badan oo shaqeynaa markii waqtiyada qaar aan u sheego aad bay la yaabaan waxay ku raadaan dee iminka markaad
iminka markaan dee anigu waxaa maanta oo dhammaan dalanaayay dee inaan meelaha ku qaylay noqonaysaa baan kulley waana waqti waxaa kaga lumayo in laga faa'iideeyo ayaa aad u qurux badan. وهاجاك داوديال هذا إحنا سوق قاعد نقاط وحبرشة مقدشي جامعة يونيتي يونيفرسيتي أردوان سومالان لقيه هرجليي إسلا سنة كده مع ذا بياقديسي وأنا جامعات قاعتي دقيق وحبرشاتي وجوب بدنيد السومالان أرديد وكهران جدها دلك بل واحد يكون جردونا قابك وحبرتاين مقدشي يسودو كلا fahankiisu heerka uu gaarsiisan yahay oo aan ka wareysan doono qaar ka mid ah macallimiinta iyo maamulka jaamacadda laftarkooga daawashaha. Having all this, we'll be having from dhankooda maamulka jaamacadda oo dareemay duruufta iyo waayaha adag ee uu la saaxiibka yahay wiilkan yar iyo dadaalka ku jira ayaa u sameeyay taakula iyo taageerid. Maqtashi wuxuu ka mid yahay 500 arday ee jaamacadda Unity University ay chance ka u siisay inay wax bartaan isagoo kaliya ma ahayna waxa kale oo jira arday badan oo muruqmaal ah oo ka shaqeysta soo xoogsada oo ay ka mid yihiin markaa inay ka shaqeeyaan dhismayaasha iyo goobaha kala duwan ee magaalada ku yaala. sidoo kale waxa ka mid ah ardayda jaamacadda Unity University ee 500 arday ee sanadka chance ka u siisay waxa ka mid ah arday kala oo danyar. sidoo kale waxa ka mid ah ardaydii 3 sano ka hor ama 5 sano ka hor secondaryada ka baxay oo chance aanu helin inay wax bartaan ay fursad u helay inay markaa chance-kaas cusub ee jaamacadda Unity University iyo hay'adda PLO Foundation ay u keeneen wadanka oo ay ka faa'iideysanayaan waxbarashadooda. sanadkan waxaanu siinay 500 arday ayaanu chance siinay inaanu qaadano insha Allah. sanadka dambana waxaan rajaynaynaa inaan inta iyo ka badan baan u qaadan doono haddii Ilaahay yiraahdo oo haddii Rabbi nagu simo xilliga oo furmo markaa registration-ka. Maqtashi waxa lagu ogaaday markii jaamacadda uu bilaabay وسوق حفيزك يمدي وكور من مركز دروفتيس iyo xaaladda ku sugan yahay habnoloodkiisa iyo sidoo noloshiisa ula tacaalo taasoo la kulmay markaa maamulka jaamacadda Unity University waxay go'aansadeen iyagoo iyo la kaashanaya markaa boardka iyo hay'adda PLO Foundation in wixii karaankiisa isagoo kaliya ma ahayna markaa ardayda danyarta ay isagaba laga caawiyo markaas wuxuu u baahan yahay. sidoo kale isaga waxa si gaar ah loogu sii caawiyay markaa in si free lagu siiyo markaa buugagta iyo wixii kale u baahan yahay maadaama isaga shaqadiisu ay tahay markaa muruqmaal. Maqdishi inkastoo uu ka shaqeeyo shaqo adag oo daal badan haddana waa mid aan sagsaag gelin waxbarashadiisa jaamacadda oo habeenkii iska xaadiriyo. Yeah, Muktash is one of our students who is a beneficiary of the scholarship provided by the PLO Lumumba Foundation. Like you know, PLO Lumumba Foundation operates in over 30 African countries in diverse areas like agriculture, education, and for the case of Somaliland, they are focusing basically for the start with education by offering scholarships to students who are bright but they cannot afford quality education, higher education. So PLO Lumumba Foundation came to the rescue of this brilliant young man who happens to be working in a construction company. He's a porter in a construction company, but his parents cannot afford his fees. And then the PLO Lumumba Foundation, because their focus is to see that Africa is transformed, like our motto says, that what begins here transforms Africa. So we would like to see Muktash having his life transformed, and the PLO Lumumba Foundation offered him a scholarship to pursue his education in computer science. So after that, we believe that his future is going to be bright, and that is what makes us different as a PLO Lumumba Foundation, to see that we transforms the lives of these young men who are bright but they cannot offer or they cannot get fees to study. Because if you say limited portion, which limited portion
Maqdishi xilligan wuu faraxsan yahay maadaama uu ka mid noqday in ka badan 500 oo arday oo helay deeq waxbarasho oo noocoodu ku cusub yahay magaalada Hargeysa ee ku nool yahay guud ahaan deegaanada Soomaaliland taas oo ay bixisay jaamacadda caalamiga ah ee The Unity oo dabayaaqada sanadkii hore laga hirgeliyay deegaanada Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waxaanu hadda haystaa niyad wacan oo uu ku hanan karo kagana rumayn karo qayb ka mid ah riyadiisa mustaqbalka. Thank you, PL Olympic Foundation and the Unity University Somaliland. I can smile now because my future is bright. Inshallah, my dream will come true. ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in jaamacadda The Unity University oo dabayaaqada sanadkii hore laga hirgeliyay magaalada Hargeysa iyo guud ahaan deegaanada Soomaaliland ay bixisay deeq waxbarasho noqotay tii ugu badnayd inta la og yahay taariikhda heer caalami ah ee helan ardayda reer Soomaaliland iyagoo dalka ka dhoofin qarashna aan u ka bixin waxaana ka faa'iideystay deeqdan waxbarasho ay jaamacaddu bixisay arday aan badankooda awoodin qarashaadka jaamacadeed kuwaas oo intaan xogta ku hayno qaarkood dhowr sanaba uga fadhiyay inay sii wataan geedigooda waxbarasho qarash la'aan.